kulan ay maanta magaalada Hargeysa ku yeesheen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xubnaha madasha wada tashiga wax isla qaateen qodobo ay kamid yihiin in hadii ay dib u dhacaan doorashooyinku in 26 bisha June ee sanadkan la soo dhisi doono xukuumad ku meel gaar ah oo sida ay sheegeen Soomaaliland ka qabata doorashooyin xildhibaan Ibrahim Jaamac Ali Reyte oo kamid ah mudanayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ugu jira baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay go'aamadan la isla qaatay waxaanu halkan isku qaadanay qodobadan hoos ku qoran annagoo ka kooban xisbiga mucaaradka ah ee cadaaladda iyo daryeelka u cid xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo madasha wada tashiga oo ka kooban muwaadiniin isu abaabulay inay taladooda iyo aragtidooda ka muujiyaan siyaasadda guud ee dalka qodobka koowaad inay dalka ka jirto guud ahaan nabadgelyo taama taasoo muujinaysa inaanay jirin duruufaha ku xusan qodobka 83aad iyo 24aad oo ah kuwa doorashada dib u dhigi kara sida darteedna ay waajib tahay in doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay ku dhacaan muddadii sharcigu u cayimay oo ku aadan 26 Juun 2015 inay laga marmaan tahay in la qabto diiwaangelinta codbixiyaha muddadii loo qorsheeyay sidii horeba loogu wada heshiiyay saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka si loo xaqiijiyo inay dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah si looga hortago inay soo noqdaan guldololooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii dawladaha hoose ee 2012 inay laga marmaan tahay in wax laga bedelo qaabka iyo shuruudaha xulashada iyo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka si loo xaqiijiyo loona hubiyo dhexdhexaadnimada guddiga si loo abuuro duruufo dimuqraadi ah oo ay u siman yihiin saddexda xisbi qaran ee u tartamaya ee doorashada ku tartamaya in haddiiba ay dhacdo inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomi waayaan in eedeeda ay yeelan doonto xukuumaddu iyada oo ay waajibkeeda tahay inay qabato doorashada xilligeedii inay waajib noqon doonto in wixii ka dambeeya 26 Juun 2016 oo uu ku egyahay mandate-ka xukuumadda tani la dhisi doono xukuumad ku meel gaar ah oo loo dhan yahay oo waajibkeeda koowaad yahay inay dalka ka qabato doorashooyin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Axmed Muumin Seed iyo Maxamed Xaashi Cilmi oo ka tirsan madasha wada tashiga ayaa sheegay inaan aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda madaxweyne Silaayo dawladda waqtigeeda dhamaaday saacad loogu darmay wakiilada saacad loogu darmay hadday u fadhiyaan golobla sharci u kordhiyay laba jeer loo kordhiyay mar saddexaad ka garka u xoqoonaya taas wax dhacaysa maaha san u midaysanahay in doorashada waqtiga ku qarsoonto si dimuqraadiyadda dalkan ay u sii socoto ayna waqtigu sida gudoomiyuhu sheegay Faysal cid walba markuu waqtigu ka dhamaaday inaan loo kordhinin looma baahna kordhis dambe oo sharci darra kolka waa la isaga imani dawlad ku meel gaar ah la sameeyay waxa weeyaan oo inagu sinta doorasho xor ah oo xalaal ah oo qabata waqti loo cayimo xisbiyada mucaaradka ayaa hore ugu baaqay in doorashadu waqtigeeda aanay dib uga dhicin iyagoo sheegay in aanay aqbalin muddo kordhin ay golaha guurtooda u sameeyaan xukuumadda Soomaaliland Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa